daawada haddii aad tahay markuu ugu horreysa aad soo booqato janaalkeena xigmadyahan waxaan kaa codsanaynaa inaad sabskraibe inoo saarto sidoo kalena aad furato gambeelka si aad u noqoto qofka ugu horreeya ee meel weliba hela muuqaaladeena cusub sidoo kale ha ilmaamin inaad like share iyo comment aad inoo siiso muuqaalkan mahadsanid weligaana guulayso waxaa jiray nin qowsaar ah oo xoolo u ilaalin jiray nin taajir ah waxa uuna maalinkii ku qaadan jiray hawshiisa 5 dirham maalin maalmaha ka mid ah ayuu ninkii taajirka ahaa damcay inuu safro xoolihiina uu iska iibiyo wuxuu yimid ninkii xoolaha u ilaalin jiray wuxuuna u sheegay inuu safar u bixi doono xoolahana uu iska iibin doono wuxuuna isku dayay inuu siiyo lacag abaalmarin ah maadaama uu muddo u shaqaynayay isaga balse ninkii qowsaarka ahaa waa uu diiday inuu qaato lacagtii waxa uuna ku yidhi uma baahnin wax siyaado ah keliya isii 5 dirham ninkii lacagtiisii ayuu qaatay gurigiisii ayuuna iskaga noqday maalintii xigtay ayuu la kulmay nin ganacsade ahaa oo dadka tuulada ay u dirsan jireen dalabyada ay kaga baahan yihiin magaalada ninkii dadka oo dhan markii uu ka soo qaaday dalabyadooda ayuu u yimid ninkii qowsaarka ahaa waxa uu isna weydiiyey waxa uu rabo qowsaarkii waxa uu yidhi waxaan u baahanahay 5 dirham wax allaaliyo waxa ay goyso inaad iigu soo iibiso ninkii oo la yaaban lacagtan yar waxa ay goyn karto ayaa soo aaday magaaladii markii uu tagay magaaladii qof kastana uu u soo gaday wixii uu rabay ayaa waxaa u soo hartay 5 dirham ee uu lahaa ninkii qowsaarka ahaa waxa uu raadiyey wax u goyn kara 5 dirham waxa uuna u soo helay bisadii ayuu soo qaaday waxa uuna u soo laabtay tuuladii intuu dhex soo socday ayuu waxa uu la kulmay qoysas meel dhexe deganaa waxa ayna ka codsadeen inuu ka iibiyo bisada maadaama xaafadoodu ay uga maari heli waayeen dawlad tiro badan oo halkaasi deganaa ninkii ayaana ku yidhi waan idinka iibinayaa haddii aad iigu beddelaysaan muggeeda ama inta ay la eg tahay oo dahab ah kadib dadkii waa ay aqbaleen oo ninkii ayay ku wareejiyeen dahabkii dabadeedna waxa ay qaateen bisadii dahabkii ayuu soo qaaday waxa uuna dib ugu soo laabtay tuuladii dadkii tuulada ayuu u kala qaybiyey badeecadahoodii waxa uuna u yimid ninkii qowsaarka ahaa waxa uuna uga sheekeeyey dhacdadii la yaabka lahayd ee uu la soo kulmay iyo dahabkii uu u soo helay waxa uuna weydiiyey ninkii 5 dirham ee dahabkan badan dhashay halka uu ka soo helay ninkii qowsaarka ahaa ayaa u sheegay in lacagtaasi ay ahayd mid uu ku kasbaday shaqo xalaal ah isla markaana uu diiday lacag dheeri ah sidaa darteedna uu alle u barakeeyey lacagtiisa sheekadan waxaan ka baranaynaa in qanaacadu tahay wax wanaagsan shaqooyinka xalaasha ahna uu alle barakeeyo waxa yar ee laga helo allah noo barakay xalaasheenna oo inaga fogee xaaraanta quudashadeeda allahumma aamiin hadda walaal muuqaalka intaadan ka bixin waxaan kaa codsanaynaa haddii aad ku cusub tahay kanaalka inaad subscribe noo saarto muuqaalkana aad like noo siiso waad ku maansantahay dabcan daawashada muuqaalkeena muuqaalka xiga intaan kulmi doono waa walaalkiin cabdirasaaq cabdullaahi oo ku dhaafaya sida ay nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh